شوفوا فرحتنا بحلى عرسان الليلة ربي يباركهم. aad arkaysaan waa dugsiga sare ee Al-Irshaad Secondary School. dugsiga sare ee Al-Irshaad Secondary School waxa uu kamid yahay dugsiyada ugu caansan Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan dugsiyada ku yaala caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. dugsigani waxa uu ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Masallaha. waxa uu xagga bari ka xigaa Hotel Ambassador. dugsigan waxa si toos ah taariikh albaabada loogu furay taariikhdu marka ay ahayd 29 July 2011 maalin Khamiis ah, iyada oo lagu furay labada mandaqadood ee kala ah Form 1 iyo Form 2. afar ka mid ah waxay ahaayeen Form 1, labada kalena waxay ahaayeen Form 2. xagga maamulka dugsiga sare ee Al-Irshaad Secondary School haddaynu jaleecno waa maamul jecel horumarka horu socodka dugsigiisa, jecelna inuu soo saaro arday ka dhisan xag waxbarasho, xag waayo aragnimo iyo waliba xag aftahannimo. haddaba haddii aynu fiirino fikirkaasi iyadoo ardayda inoo la faguraysa waxay tidhi sida tan: mahadooyin aan harin maamule maxamed baa lagu wada majeertaa, mahuraan inuu yahay maamuuskiisu waxa yahay loo wada hawan yahay waad wada ogsoontiin. maamulaha dooro meeqaan sareeyo magacee fasiyaad mudankiisa leedahay, miisaanka asaay ma soo koobi karaye maamule ilaahay maalmaha adduunyada murugo naxdin iyo ciid kaa mari hareeraha aakhira halkii mudan malkadii fadowsiyo rasuulkii mudlaayo magantiisa kacaya. dugsigayma iishow dugsigayma iifow intaad haybinayso ubad wacan hoggaankiisa hayseed ku heesaysa hanadow ku heesaysa hooday rabbigay huqiya iin iyo meel la hiifiyo kaa halee inkaariyo wax ku dhiba adduunyada. inta hadhay adduunyada inta hadhay intii dhiman jaliil waxaan baryaayaa jannadiisa ugu mudan idiin hibee dhammaantiin barayaashii habdhaqankow. شوفوا فرحتنا بحلى عرسان الليلة شوفوا فرحتنا بحلى عرسان الليلة ربي يباركهم. intaa kadib sidaad arkaysaan dugsigan waxa aan filimkiisan ku qaadaa dhigi doonaa waxqabadkii ama school activitieskii uu qabtay muddadii sanadka ahayd ee ina soo dhaafay ama akaadamiyadii ina soo dhaaftay ahayd 2011 2012. barnaamijyaadka ama activitieska ugu waaweyn ee ku qaadaa dhigi doono oo noqon doona haddaba waxaynu ku bilaabi doonaa barnaamijka u horeeya tartan aqooneedkii ardayda loo qaban jiray maalin kasta oo Arbaco ah, taas oo u dhici jirtay sida ay falaaqeynayso ama ay ka sheekayn doonto ardayadan soo socota. barnaamijkan tartan aqooneedka ee dhexmar jiray dugsiga toddobaadkiiba hal jeer ayaa waxaa wiigii horeeyay wada kulmay fasalada kala aawan ee iyo wansi 12 bishii 12 2012. halkaasna waxay guusha ku raacday fasalka 1 ee oo iyagu ahaa fasalina maaha, halkaasoo fasal kastaba la kulmi jiray fasalka dhigiisa guud ahaan uu soo mari jiray fasalada kale. waxaana la weydiin jiray fasal kasta waxa uu loo dhigay wiigii u dambeeyay. barnaamijkan tartan aqooneedka oo dhammaan soo jiitay ardayda dhigata dugsiga Al-Irshaad Secondary School. guud ahaan tartan aqooneedkan oo noqday mid lagu guuleysto ujeedooyinkii iyo ahdaaftii laga lahaa ee loo diyaariyay tartanka aqooneedka. tartan aqooneedkan maalmaha uu ka dhacay dugsiga sare ee Irshaad ayaa waxaad maqlaysaa sawaxanka iyo qaylada taageerayaasha fasalada goobta jooga, taas oo fasal walba uu ku muujinayo taageeraha uu qabo fasalkiisa. sawaxankan iyo xamaasadani ma ahayn mid keenta khilaaf fasalada iska hor keena, sababtuna waxay tahay fasalada horjoogayaasha fasalada goobta ku sugan ayaa bilowga tartanka u sheegi jiray ardayda inay aqbalaan natiijo kasta oo meesha lagaga dhawaaqo, maadaama uu yahay ulajeedku in kor loo qaado aqoontooda auna ahayn in meesha dhibca lagala tago. ardayda horjoogayaasha fasalada qaar oo arintaa ka hadlayaan waxay hadalkooda u dhigeen sida tan: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أردنتي هذا
haddii aan gudagalo waxaan ka hadlayo waxay tahay tartankan inoo bilaabtay markaynu ardaydii nahay macallimiinteenu inoo suurtageliyeen waxyaabaha quruxda badan iyo inaynu cilmigeena tijaabino maxaa inaga laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay inaynu hoggaansano iyo inaynu raacno qawaaniinta uu xeerku leeyahay haddaba arday kasta iyo galaas kastoo dhegaysanayaba waxaan ku codsanayaa in loo hoggaansamo qawaaniinta tartanka oo waxay macallimiinteenu yidhaahdaan aynu samayno waxay lahaan ka taga sidoo kalena aynu ka tagno haddaba taas baan idinku boorinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadna aad baan ugu faraxsannahay waxaan idinkaga tegaan idin leeyahay haddaba maadaama waxaasoo dham isku hagaageen barbarkay ka baxdaa waa baqaysan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد عندنا تفصيل عفوا أرضي يا معلمين يا مام الواحد والسلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذب قديم ما ترى شعورتي إذا شيء كليتو ما تقدر وحوي مالين هذا قيم بدن هم كسرنا هذا وحوليه هي طو يجي يا قوانين وحنا إن شاء الله وكاسم الضمادية ما هي جلاس كتوه قوانين تا هي شرعية أولية هي ترتكا يبدأ يسكون كبار إن شاء الله وحنا نجينا جنيا نقول جلاس كستانا وصوت يدروه سيو بدل لها مكان كوهنا لها هتقول بيت كبدل نقطة يمين هتيو نقطة أقوال إيش قياسك وأرضي aad loogu tababaray dulqaadka iyo xilmiga maash kasta ay joogaan sidaas way dhaqanka dugsiga sare ee Al-Irshaad haddaba tartan aqooneedkan ayaa guud ahaan waxaa la qabtay labadii goor ee sanadkiina soo dhaafay tartan aqooneedka waxaa si baaxad leh ugu guuleystay fasalka 1D ahna fasalka 2D ee dugsiga sare ee Al-Irshaad hadda زمزم بئر مياه صافية ماؤها كالشهد فيه العافية زمزم بئر مياه صافية ماؤها كالشهد فيه العافية وهي للظمآن تروي شافية زمزم من بها رب كريم زمزم من بها رب كريم منقذا هاجر والطفل الرضيع من لظى الصحراء والحر المريع منقذا هاجر والطفل الرضيع ciyaaraha kubadda cagta tan iyo intii uu jiray dugsiga sare ee Al-Irshaad Secondary School waxaa si toos ah uga qabsoomay ciyaaraha kubadda cagta kuwa orodada 1 kiiloomitir haddii aynu faahfaahin ka bixino sidii ay isu arkeen naadiyada kala gedisan ee ka kala socday galaasyada kala gedisan ee uu ka kowsado dugsiga Al-Irshaad ciyaartii ugu horeysay waxa ay dhex martay labada galaas ee kala ah Form 2A iyo Form 1C oo ay guusha ku raacday galaaska Form 2A halka ay ciyaartii ugu xiisaha iyo xamaasada badnayd ay iskaga hor yimaadeen labada galaas ee Form 2A iyo Form 1A oo ay guusha ku raacday galaaska Form 1A kuna qaaday koobkii ugu horeeyay ee lagu qabtay dugsiga sare Al-Irshaad Secondary School رحيم زمزم بئر مياه صافية ماؤها كالشهد horeyn markii uu bilaabmay teeramkii dambe ee sanad dugsiyeedka 2011 ilaa 2012 waxaa la bilaabay tartamo taas oo lagu xulay habka kooxaynta casriga ah oo arday kastaaba qabsanayo tiro ka mid ah 1 ilaa 10 kadibna lagu habeeyay ardayda isku tiro noqotay group lana siiyay magac ka mid ah magacyadii waaweyneed ee asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxayna ku qanceen ardaydu inay noqdaan 9 group halka 11 kalena laga dhigay wiilal taas oo wadarta guud ahaaneed ay noqonayso 20 kooxood tallaabadii xigtay oo ahayd in koox waliba ay samaysato hab maamul oo leh xilal kala duwan sida gudoomiye xisaabiye iyo xoghayn iyo waliba afayeen matalaya kooxdaasi وجه الأديم زمزم بئر مياه صافية ماؤها
haddaba haddaynu muuqaalkan warbixin ka bixino waxa weeyaan daraasad amba research ay sameeyeen ardayda wax ka barata dugsiga Al-Irshaad Secondary School. ardaydan oo ka koobneyd 6 group taas oo ay soo baarayeen mowduucyo ay kala duwan oo uu maamuluhu dooray. maamulaha iyo macallimiintuna waxay markasta isku dayeen inay garab siiyaan waxay caawina ay uga baahdeen. haddaba markay taariikhdu ahayd 8 bishii May 2012 waxaa daraasad sameeyay groupkii ugu horeeyay ee magacoodu ahaa Khalid bin Waliid. mowduucuna uu ahaa mid ka fiican xagga waxbarashada ardayda reer Somaliland wax ka barata namada iyo hablaha marka la eego dhinaca dugsiga dhexe. dhammaantii natiijadii waxay noqotay inay inamadu ay kaga fiican yihiin xagga hablaha hadday noqoto dhinaca dugsiga dhexe. haddaba markay taariikhdu ahayd 15 bishii May 2012 waxaa daraasad sameeyay groupka la yiraahdo Maymuna oo soo baarayay soona ururinayay iyo bandhiga aayaadka Qur'aanka Kariimka ah ee Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala inooga waramay xikmadda iyo la yaabka ku sugan abuurkiisa. qoraxda dayaxa xidigaha dhulka bilaha iyo falga ay dhex dabaalanayaan. haddaba markay taariikhdu ahayd 22 bishii May 2012 waxaa sameeyay daraasad wuxuu ahaa groupka magaciisu yahay Ali bin Abi Talib oo cilmi baaris ku sameeyay waa maxay faa'iidada ay u leedahay bulshada dalkeena sameynta iyo ganacsiga nuuradda. ardaydani waxay wax ka soo baareen guuraha ka xiga dhinaca bari ee degmada Maxamed Mooge taas oo ay u sharaxeen ardayda faa'iidada ay u leedahay dalkeena hadday noqoto dhinaca bulshada iyo dhinaca ganacsiga. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض. sidoo kale waxa iyaguna cilmi baadhis la xiriirta heerka waxbarashada Somaliland taas oo ay wax ka ogaadeen kooxda Kalsoom oo ay hogaaminaysay Xamdan Nuur Ibraahim 3 bishii Janaad 2012 waxayna waraysi la yeeshay guddoonka waxbarashada gobolka Maroodijeex agaasimaha dugsiga gaarka loo leeyahay iyo agaasimaha manaahijta iyo tababarada waxbarashada Soomaaliya. wasaaradda waxbarashada waxay si farshaxnimo leh u soo bandhigeen cilmi baadhis in heerarka waxbarashada Somaliland ka soo bilaamatay marxaladihii daasadaha la fadhiisan jira haddana ay leedahay in ka badan 70 dugsi sare oo dawli ah iyo 31 dugsi sare oo private ah iyo 17 jaamacadood. للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا وولا. markay taariikhdu ahayd 5 Juun 5 bishii 2012 ayaa kooxda Salama waxay cilmi baadhis ku tageen saylada xoolaha iyo goobta rarka awrta loo dhoofiyo ee ku taala Masalaha. waxay kooxdan si qurux leh u soo bandhigeen doorka ganacsiga xoolaha nool kaga jiraan dhaqaalaha dalka iyo waliba carqaladaha dhibaatada ku haya. waxa kooxdan ugu cadcada Muna Siciid Cabdiraxmaan oo u daliishanaysay naska aayadaha Quraanka Kariimka. ugu dambeyntii kooxda Caaisha oo ku guuleysatay kaalinta koobaad cilmi baadhista waxay soo bandhigeen daraasada kaalinta tamarta cadceedda Somaliland ay ka qaadan karto horumarka dalka. bandhigoodu wuxuu isugu jiray riwaayad la magac baxday waxa loo tartamaya tamarta bilaashka calan saarta birta calanka ee dugsiga uu ka caawinayay maamulka dugsigaasi. bandhiga qalabka loo adeegsado soolarka iyagoo soo marti qaaday injineer Cabdikaafi oo ahaa takhasuska ganacsada solar energy-ga. أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم حققت للشعب مراد. sida aad arkaysaa ama aad daawanaysaa barnaamijkan ka baxaya dugsiga sare Irshaad ayaa mid aad u xiiso badan guud ahaan soo jiitay ardayda. barnaamijkan hadalkiisa muuqaalkiisa ugu dambeeya waa cilmi baarista ay sameeyeen gruubkii ku guuleystay gurubyada loo diray cilmi baarista ee ka koobnaa 6 guruub waxayna soo bandhigeen sida muuqaalku idin tusayo sida looga faa'iidaysto tamarta qoraxda taasoo injineerku ka caawinaya ka socda kumbaniga Kaafi. tan ayaa kor u qaaday kocobkii waxbarasho ee ardayda qaybta practicalka waxayna wax badan ka faa'iidaysteen waxyaabihii theory-ga loogu sheegay inay ku arkaan
iyada oo baraticaala. haddaan intaan kaga soo gudubno researchadii iyo barnaamijyadii hore ee ka baxay dugsiga, waxaan hadda soo bandhigaynaa ama aad la socon doontaa barnaamijkiisa ugu xiisaha badnaa oo ah doodihii ka baxay dugsiga sare. doodahan oo ay iskaga hor iman jireen gurubyo ay ardayda loo sameeyey ayaa bilowgii doodaha waxaa ugu bilaabay iyadoo hooga tusaaleyn laga siinayo qaabka ay u wadi doonaan ama u socon doono barnaamijka dooduhu maamulka iyo macallimiinta. dooda koowaad oo ay ku fureen macallimiin iyo maamulka oo dood wadaag samaynaya ayaa waxay ahayd dooda koowaad ciwaankeedu haweeneydu ma qaban kartaa xilka madaxweynenimo, taas oo hogaaminayay ama uu dhexdhexaadi ka ahaa macallin cabdiraxmaan guuleed gaari, halka maamule maxamed cabdi xasan iyo macallin mukhtaar axmed cumar ay ku doodayeen haweeneydu madaxweynenimada ma qaban karto, halka dhanka kale ay kaga soo horjeedeen macallin cabdisaaq muuse faarax iyo macallin maxamed bashiir khaliif oo iyagu ku doodaya way qaban kartaa. gunaanadkii iyo gebagabadii barnaamijka maalintaa goobtaa ka baxay ayaa waxaa noqday mid guusha ay ku raacdo maamulka, taasi oo ardayda u barnaamijsay sida barnaamijka dambe ee ay u wadi doonaan doodaha iyo in la kala faa'iidaysan doono. doodihii iyo sida ay u dhaceenna waa sida tan ee soo socota. doodihii dugsiga Al-Irshaad ka dhacay ayaa waxay si toos ah u bilaabmay 25 Abriil 2011. dooda koobaad oo ciwaankeedu yahay doorka saxaafadda xorta u leedahay horumarka dalka, taas oo ku kulmeen laba kooxood oo kala ah Bilaal iyo Muscab, halka ay Bilaal ku dooday waa mid raad fiican reebaysa, halka uu Muscabna ku dooday waa mid raad xun reebaysa. doodaas oo u dhacday sida tan. saxaafadda xorta ah way leedahay faa'iido haddii aan indhaha qabayn qofka leh maanta saxaafadda xorta ah faa'iido ma lahana. marka hore waxaan rabaa bal hore yaro soo maraa ma soo gaadhin arkeedii. marka waxa weeyaan saxaafaddu way leedahay faa'iido way leedahay. faa'iidooyinka alle waxaa ka mid ah faa'iidooyinka wax ka qayb qaataa horumarka waxbarashada way ka qayb qaataa, horumarka ganacsiga way ka qayb qaataa, horumarka dalka Soomaaliland oo kale haddii aad doonaysid inaad mucaarad noqoto waa in aad diidan waxa laga yaabaa lugba nolol soo ragashay dhinacayaga waa la magaranaysaa soo dhigtay soo dhigtaana meesha may leegaan inaad hubkiina soo qaadataan bahad, laakiin si anagoo idin dul qaadan mayd idin ogolaan haddaa lugta soo ragashataan. waxaad weydiinaya su-aal ah haddii aydan aanay saxaafadda xorta ay muhiim ahayn 90% guryaha ku yaala Somaliland guri kasta oo ku yaala Somaliland waxa laga soo helayaa joornaalkii wiigii ugu dambeeyay laga yaabaa TV-gii saxaafadda tilmaanta diinta jamaad maanta yurbiya sheekha dhacay ma laga saxaafadda, laakiin saxaafadda ka duwande adiida wax ka qawani bil maanta hadii la xor baaqtay dan qof kasta hadii maanta xor oo tariiqa fi wax jira maxamed tariiqa hadii maanta qof wax kasta la xeer bilay shacbi leeyahay wax meel ay gaaraan saxaafadda wax loo baahan yahay, laakiin saxaafadda xorta maxay tahay samee ku beddelsan وسؤال مش قرادة ما هو حاجة شوية يعني ما تقول بدي لكن أنا سؤال قبل بوديني هذه حاجة واحد بوديني أنا ما هي صحافة نقطة صحافة تسمى اللي بيجي كلام صحافة واحد صحافة نقطة مركز نقطة صحافة الحرة ورما هي صحافة نقطة مركز نقطة صحافة الحرة اللي أنا قرأت عالم قوي تسوى شوية سوشيال وديسير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد kooxda saddexaad oo iyaduna kulantay 16 May 2011 oo ciwaankeedu ahaa midkeeba saameynta tooska ah ku leh qofka bini'aadamka horumarinta noloshiisa marka la eego lacagta iyo tacliinta oo ay dhex martay laba kooxood, kooxda Umar bin Khadaab iyo Cismaan bin Affan, halka Umar bin Khadaab ku doodayay lacagta Cismaan bin Affan ku doodayay tacliinta. doodaas oo iyadna u dhacday sida tan. nida barbarkaad ka maraysaa boqorbaad ku mudan tahay bilicdaadu waa heer shimbiruhu istaagaan lacagay jiro joog laqmiga dunida labaduba horta ahmiyadiisa uu leeyahay, laakiin ka mudan labadaba ayaan ka hadlayaa. mudantooyada waxa la aqoonta sababtu waxa weeye
halkan dalaa'il fara badan baa laga sheegay oo diiniya oo ku noqon maayo laakiin simbali eyga waynu naqaanaa halkuu kaa taabto 7 jeer mayra in la yidho marciidka soo maaha kiisa wax la baree kalbul mucallamka la yidhaahdo wuxuu kuu qaabto waad cunaysaa waana xalaal tacliintaa keentay tusaale kaleba ku raagi maayo marka anigu waxaan ahmiyadda siinaya ugu ridaya codkayga qolada aqoonta ardaydeena codkarnimada ku bartaan oo ay isteejyada kaga hadli karaan laakiin lacagta iyo aqoontu aniga ra'yigayga waa laba shay oo iskaabaya ama isdhala haddaanay aqooni jirin lacagi may jirteen haddaanay lacagi jirinna aqooni may jirteen marka aniga ra'yigayga waxay la tahay haddaan si kale u idhaahdo talebaan baasha iga horreeyay horta anigu aqoontan markii hore ra'yi ahaan taageersanaa hase yeeshee waxaan isugu soo dhaweyn karaa runtii lacagta waxaa sameeyey dad aqoon leh dad aqoon leh anigu personally sabab maxay ka digtaa si wanaagsan ra'yigiina ururinaya waa fiican marka hore haddii anigu personally shakhsigayga aan ra'yigayga dhigto waxaan aaminsanayaa anigu inay aqoonta sarreyso iyo ardaydu ee ka baxsan labada group qolada xukaamta ama juurigu iyagu waxa weeyaan ma qiimeynayaan mana qorayaan waxaa la qorayaa ee la diiwaangelinaya waxa weeyaan labada group ee tartamaya waxaa ku hadlaan iyo daliishka ay keenaan anigu markaan eego saddexdii macallin iga horreeyey meel bay mareen anigu meesha kalaan maraya lacagta adduunyada caalamku wuxuu ku kala tegay waxa weeye waa dhaqaala weeye lacag marka la leeyahay waa maal maalku waxyar waa maadudi lacagta dalka ciraaq waynu naqaanaa ama dalalka carabta dowladaha caalamku waxa weeyaan aqoonta saynisaanada caalamku waa reer galbeed waa ruush ha yeeshee waxa maanta iiraan ay ku samaysay dhulka nukliyeerka ah ee heerka ay ku maraysaa ama ciraaq ay horumarka ku gaadhay waxa weeye waxay soo karaysatay aqoon-yahanadii iyo saynisaanadii ayay soo karaysatay lacagteeda ayay ku horumartay waxa weeye maanta investment la maalgelin qof kastoo aqoon leh haddii aanu maal haysan ama wax maalgeliye aanu haysan hal kama duwana dhagax meel yaalla aqoontiisa xushay weyse dalku haddii aanu lahayn dhaqaale haddaanu dalku lahayn horumar ma gaari karo waxaan leedahay waxaa ogtihiin dahabka cascas ee aad taqaanaan goynaya dahabkaas oo samaynaya fikrado iyo aaraa iyo hindisaad markaasi soo saara markaasi dhaqaale kale waxaan leenahay lacag baa lacag dhasha dhaqaale ayaa dhaqaale laakiin aqoon baa aqoon dhasha maaha lacag baa lacag dhasha dalku waxa ku warabaa waa lacag weyn كل السلام يا صاحبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا رنتي أنا تاجر فكرة هذا أرقيدا يجو لا علمي يلا عك وها هريت علمي وحين ما صاروا سوقاتين عرف المركو قوي توقع هتوحى فرضعه مفوقات سوق هذا يا مطلعات معه سوق هذا وعروه كولا إنه عصو حذي لكن هدول قرنين محل عسى أنا هذا عندي جيت هدول قرنين أنا واحد وحذي أو حارين إنه قرنين دمعوا بقى هذا يا وش عارف كلامات سالي يردوا من سوق هذا يا إسلام ما عليه سلم وفي قراءة مو بكرة قراءتي مو بكرة تطلع عفوها إسلام تطلع عنها هي نوين تلعب مو بكرة ويجد قف مرت تطلع العين في الجيوش عطيا لأن عندك شو عمل عطك المثلنا وهي كل هو يقول أنا يعني العين عليه دك الليل يقول نبقي ده محاول يقول له كرمه تسألين وحكم لها كنت قاعد تصعد إلى الله العد ده حد وين ما رحنا كلهم معي ده حدنا قريب بوحة ما كنت وين ولا بوفر يساعدنا قريب محامك صلاة يا بدر كم بلعت حدا من كفر تقول لك شات كبره ولا شقيستون العشرة يكون دولة وين محل عد فلوس ورسيه هنا ولا قفت وينه أخواتي كنتم ضيع ترى سواها الحمد لله هاي قفت واحد كذي يروح جالسين كرامه ومركوا ولا العقة العقة أنت روح كلا سؤال ولا مترا إسكون تقاونا بس كل ما يجان العقة السنة دولة مريم ما يسوي كذا منها
dalka waxa qurux badan ku jira waxa waxa ku qaadan sida qolka ma dhigay ninka guriga dhigay maanta waxaan isu jeedinaya مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب dooda shanaad oo iyaduna dhacday 29 May 2011 oo ciwaankeedu ah keebaa fiican in aad ku noolaato dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo ku isaga hor yimaadeen laba kooxood oo kala ah Xafsa iyo Abubakar halka ay Xafsa ku tartamaysay dibadiisa Abubakarna uu ku tartamayay gudihiisa doodaas oo iyadna u dhacday sida tan dudhararti timadaba dhulka laga tegayaye dhallinyaradii dhogba hor yimi wanaad aragtaane war waynaad ka dhidhidan walaal dhaqankii mooye waynaad ka dhidhidan walaal dhaqankii mooye waxba yaanan dheeran waxaan hadalku soo kooban daayii dhulkaygu waxaan dhaarka xaagarsiiyey waldhib baan ku uri lahaa haddii lagugu soo duulo waxa uu ku riyooda amba uu xilibkiisa u yahay inuu sida dalkan dhanfilaan uga tegi lahaa for example hadda hadday daal halkaas soo istaagto mali baa diidaya waan isku wada kullayna tahay dhinaca kale jaamacadihiina ka qalin jabiyey laakiin maanta suuqa Hargeysa kuman oo waxay qabtaan aynan hayn haddaanu eegno xagga waxbarashada waan soo sheegnay waxyaabihii fakalladii aanu ka helen jaamacada Hargeysa haddaan nabigeena usganaa naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi ka doono cilmiga kolay tahay carriga shiinaha yacni meesha ugu fogaanu ka doonanana waa shiinahaya meel kuxidhisa gidaha kasta waa inaanu marnaa waxbarashaanu ka doonayna فقطع الرحيل قطعت كل شيء فاض الدمع من العين وهي تودع المكان فاض الدم كثير لكن ما فائدة توقف المدر الغزير وضاع المستقبل الطلاب أين المستقبل أين الاعتراف هيا يا أخوتي خذوا نصيحتي هيا نهجر البلاد لكي ننقذ بلادنا من النار هيا يا أخوتي كان وقت حاجة دين الإسلام waxaad arkaysaa Somaliland markay joogno nin diinta islaamka haysta diintiisa islaamka haystee waxa uu doonayaa inuu ku dhaqmo qofkii islaamka diintiisa islaamka markuu ku dhaqmayo waxa uu xorriyad u haystaa inuu salaadiisii tukado wadankiisii ku dhex soomo hadduu doono waxba yaanu soomin beyd hadduu doono ku dhex afuraya baari aada u wacan iyo beyd qurxoon iyo uu ka dhex buuxo beero aada u kala mudan oo bankii wajaalaha baahida ku reebay macnihii sababta igu kalifaysa inaan wadankayga dibadiisa u baxaa ama aan wadamo kale u tagaa anoo welibana laga yaabo inay dhibaatooyin fara badan iga qabsadaan laakiin sababta aan u baxaya waxay tahay inaan wadankayga wax usoo qabto taas oo haddaan maanta halkan aan idhaahdo halkan aan wax ku baranaya ama aan doonaya aanan keenin heer ilaa jaamacadeed welibana PhD-ga naftooda waxay u qiimeeyeen sidii ay dadkooda jahliga uga saariyeen taas oo keenaysa in dhibaatooyin fara badan ama caqabado fara badan ay ka qabsadeen inay halkan imaadaan oy diinta aad maanta haysatid ee aad ku faanaysid ay iyagu ku keeneen taasna diinta markii horeysa waxay kasoo bilaabantay Maka iyo Madiina dad baan halkan keenay waxaan u maleeyaa inay taas caddayn tahay in abuurta ka dibadda uga bixi kartay محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد
dooda lixaad oo iyadna dhacday 6 Juun 2011 oo ciwaankeedu ahaa ganacsatada Soomaaliland door cad ayay kaga jiraan horumarka iyo dhismaha dalka oo ay iskaga hor yimaadeen iyana laba kooxood oo kala Asma bintu Abubakar iyo Khadija halka ay Asma ku doodaysay maya ganacsatadu way ka gaabisay Khadijana ay kaga tartamaysay ganacsatada lakaska laalaadi mooye reersiga la soo baxay nabadsiga ishiisu nas badan ka gaara ladnaantii adduunyadu laba cisho weeye reerlaysa ay koran laamiyada la xisay leeliica shacabka kule xaysa ay koran muuqyada magaalada bilicda iyo waxbarashada marka hore aan ka horeeya caafimaadka waxaan leenahay ganacsatadu waxbay kartaa horta yaa jaadka soo geliya dadka waxa weeyaan oo laba qolo waa gorgaafaniya inaad siilasan u maqlay markaas waxay wadaan dadka ku hayaan ama waxyaalaha ay runtii dadka tahay faa'iidada ay u tahay waxtarkoodu uu ka badan yahay waxyeeladooda ay ka badan tahay waxtarkooda waxtar koowaade horta telefoonadani ma waxay wax dhibaata inoo keeneen mise faa'iido yaradeedii maanta bilaa camal iyo bilaa shaqo ayaa dilay haddii ay waddanka wax u taraya oo waddanka ay muxuu ahaa u samayn lahaayeen lacagaha ay muxuu ahaa iska kaydsanayaan oo waxaad arkaysaan ninkii ganacsadaha inuu berberaa raashinkii ka soo dejinayo baabuurkiisii uu kusoo qaadanayo bakhaarkiisa bandaalku anfiyo suuqa loogu dawgalay waxaa tahay wiil saacada dayarkii soqolkiyo daayeerka suuqiyo bisadaha la daabtaga waxaa tahay wiilu daacada dayarkii agoomaha aabbahood la duubee iyagaan dayar qabin lagu xadaro hablaha waxaa tahay wiilu daacada naafada dayaartee isku sadaysa qabadee dadka gaari weydee madaafiinu dagatiray dulme madficiida raasiyo kaaruhu dul marayee dabalaha kaaye bana daayirkoodii dadka waana ugu dhigay waxaa tahay wiilu daacada kala soo galay madaxweynihii u horreeyey waxaa ku xigay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariisto madaxweynahaasi waxa uu dalka ku dhaqaajiyey ama dowladda ku dhaqaajiyey waxay cashuurtii ka soo hooyanaysay dekedda berbera ee ay laga cashuurayay ganacsatada waxa ahayd si ay jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland aanay isu bixin oo ay isu taagto ha yeeshee ganacsatada waxay u hortaaday tahay Omar hadduu yahay dahabshiin hadduu yahay nadeero ma kala reebayno dhammaan ganacsatada waxay u horeen maalkoodii ayay u horeen cashuurta in ka badan oo laba laab inay bixiyaan WHO mataanahay galaan ismaha dal wanaajin dabaqayda armaas cimaan ku qayb lama dhowrsan ku kaalay galay hadal soo eeg daba qaada dhan samteena samteena eeg tayadeeda wacan dabaqayda wacan dabaqayda yishaad isa saartiyo daruuraha gale cinda yahay بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى dooda lixaad oo iyadana dhacday 13 Juun 2011 oo ciwaankeedu ahaa burburka qoyska waxaa mas'uul ka ah ragga iyo dumarka taas oo dhex martay laba kooxood oo kala ah Xamse iyo Faadumo Sahra halka uu Xamse ku doodayay haweenka Faadumo Sahrana ay ku doodaysay ragga taas oo u dhacday doodaasna sida tan lacnad daraado oo dumarka iyo ragga adeemkan waxa lacnad badan dumarka waxa kala naarta ku badnaateen idinkoo zawjkiina khilaafaya arrimaha guriga ku khilaafaya su'aalaha haddaynu soo qaadano gabadhii damacday nebi yuusuf calayhi salaam naftiisa damacday gurigiisa joogay markii ay damacday naftiisa waxaa ku jiri haytalak ay toosnaato nebigu calayhi salaatu salaam naseexo aada u wanaagsan buu yidhi wuxuu yidhi fastawsuu binnisaa'i khayran waar dumarka ugu dardaarma khayr loo jeednaani kalsooni la-aan ninka ka haysa gabadhiisa haddaba qodobka ugu weyn ee saameynta kule inuu reerku burburo waxa weeye qaadka maxaa yeelay hadduu ninka qaad cuno waxa uu ilaabaya baahidii ay carruurtiisu u qabtay
waxbarasho caafimaad tarbiyad iyo wixii la mida waxaa kaloo uu ilaabayaa inuu reerkiisa u shaqeeyo waxaa kaloo uu qaadku sababayaa inuu mar kastaba ninku iska jiifo oo uu gabadh xilkiisii oo uu gabadha ku idhaahdo bal karaamadayda awgeed waa adigaa qayliyey bal qandigii bal aynu eegno karaamadayda ama qandigii wixii cunadii ku jirtay wax kala kaga dhigay islaantii baa furtay qandigii dee ciiddii ku jirto baa kaga soo baxday dee ma karaamadiisaa kasoo saartay xilkasnimo la-aantiisa marka horeba isagaa kusoo shubay waxaa kaloo jirta bal ka warrama ninkii oo magaaladii gabadhii ku nool oo jooga magaaladii ayaabaa iskaga tegey dabadeeto wuu soo noqday jaarkii buu ku yidhi ugaarsadii meelay haadhe bal jaarkii maxay ugu jawaabeen daraata miyaan la aasin miyaan kalfa loo amaahan miyaan axan loo yaboorin miyaan jidka qaylo oogsin miyaan insigii gadoodin miyaan wax loo ayaa yimid dee waa wax dhaba ma ogeyn wuu iskaga tegey dee waxaasoo dhan waa in loo sameeya laakiin hadduu ninku dhiman lahaa oy gabadha hadduu ninku dhiman lahaa gabadhayo oo joogta xataa haba kala tagaane dee may dhacdeen in kafa loo amaahday in axan loo amaahdo laakiin iyadoon haynin ayay haddana ilaa waa qof firsatee ilaa waa qof waxgarade in ay gabadhu maxaa la idhahdaa u sameeya lahayd oo doonaysa waxa weeyaan anoo haddana gudbo su-aasha waxa weeyaan waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ninkii oo dididaya oo soo dididaya kuma soo galay in ay idhaahdaan marka ay idhaahdaan maadiga waxuuba keenayba intani waa iyadaaba ku filan ba isqurxintaydii iyo caddayntaydii taasina waxa weeyaan xay otomaatikisa oo ay dumarka u jeediin waxa weeyaan taasoo aan u samaynay daliilo badan oo halkii fiican iyo muhiimadda ay dumarku ku leeyihiin bulshada iyo sida ay u kaabaan qoyskooda gruubkeegu siduu yidhi dumarraa hormoodkii reeraha u tukan jiray rafaadka ka bixin jiray markay sidaas dhigantana dumar waa haldoorkii rugi jiray hawlaasta rooygooda cabiri jiray amaan lagu qabowsado xaaskooda u dhigi jiray maanta aan idhaahdee guud ahaan raggoo idin gaba reerahoodii haddaba waxaa jira qodobo badan ay ku dubiyaan ragga qoyska qodobadaasoo habdhihii ugu horreeya sheegeen sidoo kale qodobka ugu horreeya waxa weeye qodobka jaarka kaasoo aad tiraahda su-aashii dumarka jaarka u icnaa ha ku dayan dumarka waayo dumarka xilma saarna laakiin iska xilba ku saaran haddana waxay isku dayeysaa bal inay iyadu dad ka dhigto maamax carbeed ayaa waxay tiraahdaa waraa kulla cadiimin imra'a taasay macnaheedu tahay nin kasta oo maanta sarkaalayna arkayno wax nin kastoo fariidayna arkayno in ay wanaagiisa ka mas-uul ahayd gabadh qodobka kale kaga qayb qaadanaya doodan maanta waxa weeyaan sidoo kale xilkasnimo la-aanta ragga waxaa ka mid ah ninkii oon ognahay isaga oo mashaqaysa ah oo aan oo gabeha kaalintii uu ku lahaa qoyska ayuu haddana wuxuu isku dayayaa in uu lacagtii ay gabadhiisa soo shaqaysay in uu gabadh kale ku guursado mahmaa soomaaliyeed ayaa waxay tidhahdaa timirtii horeba dabloowa mata dambe ayaa loo heli hadduu isagu mas-uulkaha aqalkii hore inuu guriyo ma laga yaabaa inuu aqalkan dambe hagaajiyo sidaa darteed run ahaantii burburka qoyska in ay raggu mas-uul ka yihiin kow iyo laba kuma soo koobi karno magasdili kara gar badan ka dhaqi kara darashadana isaga mida quruxdana ka wada gob ah geestana mooyaan geeskana ma jooga doodan ugu dambaysa aad arkaysaan oo noqotay midii ugu dambaysay ee soo xidha barnaamijkii doodaha ee ka soo baxay dugsiga sare Irshaad ayaa waxay noqday gruubka habluhu mid ku guulaysta kana guulaysta dhammaan guruubyadii oo kale dhibcaha ugu badan la helay sidaas ayayna ku dhammaatay barnaamijkii dooduhu Thank you.
gunaanadkii iyo gebagabadii ayaa waxaa noqotay barnaamijyaadka la soo qabtay in lagu arko awoodo daahsoon oo ay leeyihiin ardayda dhigata dugsiga sare ee irshaad. awoodahan oo ku noqday dadka qaar wax lama filaan ah. waxaa ardaydii kasoo dhex baxday arday abwaano ah, qoraa iyo aftahano iyo qaar kaloo badan. markii ugu dambaystii ayaa waxaa la qabtay xalfad lagu abaalmarinayo ardayda sida baaxadda weyn la uga qayb qaadatay barnaamijyaadkii sanad dugsiyeedkii 2011-2012 ka baxayay dugsiga sare ee irshaad. xalfadaas oo u dhacday si heer sare oo ay kala soo qayb galeen ardayda iskuulka al-irshaad primary and intermediate school, ardaydiisa fasalada sideedaadka, kuwaas oo maalintaa marti ugu ah xalfadda xidhitaanka sanad dugsiyeedka iyo barnaamijyaadkiisaba. xalfadan ayaa ahayd mid heer sare u dhacday, dhammaan ardaydii oo dhanna farxad gelisay, abaalmarinna lagu guddoonsiiyey. xalfadan ayaa noqotay mid sida aad wada arkaysaanba bilicsan oo aad u qurux badan. waxaad la socoteen barnaamijkaas muuqaalka quruxda badan ee ka sheekeynaya sanad dugsiyeedkii ina dhaafay ee dugsigaas ee sare ee al-irshaad, iyadoo barnaamijyaadka weli ay soo socdaan qaybo kale sida waxqabadyadii ardaydu ay sameeyeen iyo barnaamijyaadka ay soo bandhigeen oo dhowaan iyaguna inoo soo bixi doona. waxaynu ku soo xidhaynaa barnaamijkii hoygii aqoontiyo barayaashii haldoorkee hawlkarnimo lahaayee sidii geed magoolo hoobaantiisa midhihiyo hooskiisu wacan yahay aanu harsanaynay marka hore salaandhaba. irshaaday kobtii geesi hanadoo haryayoo dhulkiisiyo hooyo baariyoo wacan ubadkana xanaanayn hindisaha sarreeyiyo ku habaysay diintii habboonayd inay igu hiloobaan habkii ay ahaydiyo sunnihii rasuulka. irshaaday hilaacii baxaayay carfigiyo udgoonkiyo hoobaan bislaatay hareeraha xareeddii biyuhuna fatahayaan ishu haybinaysaad irshaaday la dhigantee heerka aad ku sugan tahay hadafkaaga dheer iyo hindisaha waxqabadkiyo himiladii dadkaagee aad haybinaysee aad ku heshay wanaagga. dugsigay ma iishow dugsigay ma hiifow دين جمال وتمنونا دين جمال. هنوا معرسنا غنوا لليلة. هنوا معرسنا غنوا لليلة. شوفوا فرحتنا بحلى عرسان الليلة. شوفوا فرحتنا الليلة. دين جمال وتمنونا دين جمال. شوفوا فرحتنا بحلى عرسان الليلة. شوفوا فرحتنا بحلى عرسان الليلة. أشهد بالله الليلة ما في مثلها الليلة. أشهد بالله الليلة
بحلى عرسان